kulanti wacan khiyaarta kala gedisan ee dabcan hawada sida tooska igala socotay waxaad ku soo dhawaataan war wixii deegaanada Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka intiisa kale naga soo gaadhay warku waxa uu idgaga imanaya xarunta telefishinka uu ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa waxaana idin soo jeedinaya anigu Axmed Ibrahim Maxamuud Axmed Sakiya qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah laba qarax oo isxiga ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda u ah dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay u ambabaxeen magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka halkaasi oo ka dhacayo shir lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu ku magacaabayo gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale maxkamadda rafcaanka ee gobolkaasi xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ayaa waxa ay ka doodeen xaaladda guud ee amniga dalka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Xuseen ayaa ka hadlay heshiisiinta beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada Ceel Afweyn oo kamid ahaa ergadii nabadeynta beelahaasi asagoo dhanka kalena sheegay inay casuumad u sameyn doonaan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay ku casuumi doonaan Somaliland daawadayaal wararka arrimaha dibadda ee diin haynana waxa kamid ah dalka Norway oo aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea oo markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee dawladda federaalka Itoobiya daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararkeena ugu waaweyn imika haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan